السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالا يالي جهردو ينسو دوادا ميل كستا دوندا ديفا هذا كجوكتان هلاكن waa Deman TV waadhag oo dhameystiran Deman TV aad baad u mahadsantiin daawadayaal sidaad u daawateen fiidiyoyaashii hore aan halakan ku soo taxay sidaad leegta u saadeen commentiyada aad ka soo bixiseen share gareyntii aad u sameyseen kulli waad ku mahadsantiin waan idinka mahadcelinayaa boqol waxaan leeyahay Ilaahay idin naxariisto oo Ilaahay inoo naxariisto oo inta dhibatay Ilaahay au naxariisto annagana hanooga daba naxariisto labadeedii waalid iyo labadiina waalidna kulli Ilaahay au naxariisto adduun iyo aakhiraba naxariisto Soomaalidu qofka nool hadaad dhahday hebel aaway Ilaahay au naxariisto wixii ku leeyin ma dhintay laakiin naxariisto qofka nool iyo qofka dhintayba waa u baahan yahay marka Ilaahay inoo wada naxariisto marka nool lahay markaan dhibanaba intaas ka gadaal daawadayaal waxaan maanta idin hayaa de fiidiyowga aan ku soo qoray title-ka oo ah waxbarashada ka jira qaaradda Afrika waxbarashada nidaamka waxbarasho ee ka jira jaalayaal iyo jooradooyin waa ogtihiin dhowr mar waxaan soo tabiyay oo idin soo tabiyay yani Afrika dhibaatooyinka ka jira dhaqaale xumada ka jira dumarka Afrikaanka iyo dumarka cadaanka waxbarashada yaan oran dhaqaalaha iyo sidii arrimaha xal loogu heli lahaa si guud baan uga hadlay laakiin maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada Afrika ka jira nidaamka waxbarasho ee Afrika yaal baan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada waxbarashada Afrika ka jira dadka Afrikaanka kuma boorisana inay wax bartaan dawladahooduna xoog kuma siiyaan waxbarashada dawladuna xoog kuma siiyaan waxbarashada aleyle dadka ugu roon waa dadka Afrikaanka ee Afrika laga wado Soomaaliya waxa ka mid noqotay oo loo qaado dalka dibadiisa sida ay wax uga soo bartaan qaaradda Afrika nidaamkeeda waxbarasho aad buu u hooseeyaa waxyaalaha waxbarashada u hooseeyo waxa keenaysa tayada baraha tayada macalinka oo macalinkii ma helaa macalinku nolol ku filan ma helaa macalinku allowances ma helaa macalinku wax ka baxsan mushaharkiisa oo dawladdu ama iskuulku uu ku taageero ma helaa macalinku retired fee oo markuu shaqada ka fariisto lacag ma helaa waxyaalahaas oo dhan tayada macalinka way ku xiran tahay marka maadaama uu macalinkii intaas uusan helin dawladuna aysan u fidin kaar uusan lahayn kaararkii kala duwanaa mid caafimaad uusan lahayn macalinkii uusan helin wax ka baxsan mushaharkiisa marka macnaheedu waxa weeye macalinka wax barayaay tayadiisu waa hooseysaa ma qanacsana lack of satisfaction macalinka wax ka maqan kalsoonidii iyo waxa ka maqan yani jaclaysigu shaqadiisa jaclaysan lahaa laakiin markii macalinka loo fidiyo waxyaalo badan oo asaaska nolosha loo fidiyo macalinka wuxuu noqonayaa mid shaqadii waxbarista ku faraxsan buu noqonayaa oo shaqadii wuxuu soo saarayaa wuxuu ku dadaalayaa Ilaahay baa soo saaray laakiin wuxuu ku dadaalayaa inuu shaqadiisa ka soo baxo maxaa yeelay waa mid wuxuu noqonayaa mid shaqadiisa lagu dhiirigeliyay laakiin macalinka maadaama uu intaas uusan dhan helin macalinka Afrika joogay ee dadku wax barayay Soomaaliya waxa ka mid noqotay uusan helin marka waxay noqonaysaa macalinka macnaheedu waxa weeye macalinka tayadiisu waa hooseysaa taas waa nidaamka nidaamka yani dhinaca la baraha oo macalinka ama ustaadka ama teacherka hadda waxa doontid macalinka Afrika jooga waa nooca macalinka Europe jooga ama Mareykan jooga waa ka duwan yahay macalinka Afrika jooga yani macalinka Europe jooga wuxuu haystaa noloshiisa in ku dhameystiran waa mid ku faraxsan shaqada uu hayo ma garatay taas waa macalinka la baraha oo ardayga ama student ama daalib waxa doontid u dhahay ardaygii wax baranayay oo wax la barayay ma aha mid shaqo ku qanacsan shaqada cilmiga waxbarashada maxaa yeelay wuxuu og yahay si kastoo wax u barto 12 sano iskuul ka baxo 4 sano jaamacadu ka sii baxo ma garatay hal sano luuq uga dhuma ma garatay ultima biacho marka ugu dambaysa in shaqadiisu aysan noqonayn aqoontiisa laakiin shaqada uu helaya ay tahay mid uu ku helay saaxiibtinimo mid uu ku tahay mid uu lacag ku bixiyay inuu shaqada helo mid ay tahay uu ku helay yani race ama reerays uu ku helay maadaama ay shaqadiisu noqonayso
ardaygii wax baranayay Afrika ma aha mid ku faraxsan waxa uu baranayay shaqadiisa tacliinta taas waa sababta oo ardayga tacliintiisa ay u hooseyso ardayga wax baranaya aqoontiisa ay soo hooseyso ama uusan iskuulka ugu qanacsanayn taasina waa ardayga waa dhanka ardayga dhibaatada ka jirta waana sababta loo garaaco ilmaha ardayda Afrikaanka ee wax la barayo oo iskuul walba Afrikaan dadka loo garaaco Afrika Soomaaliya ha ugu horeysay oo ardayga loo garaaco ardaygii kuma qanacsana wuxuu baranayo ma aha mid boqol ku faraxsan shaqada uu hayo macallinkii ma aha mid ku qanacsan laakiin duruufaha nolosha sidaas yiri macallinku wuxuu ku khasban yahay inuu ardaygii garaaco suu shaqadiisa u sii wato taasina waa ardayga Yurub jooga ama Mareykan jooga ama cadaanka wadamada cadaanka Ilaahay wax siiyay joogay waa arday ku faraxsan wuxuu baranayo waa arday og wuxuu bartay inuu shaqo ku helayo waa arday og wuxuu bartay inuu sharaf ku helayo waa arday og wuxuu bartay inuu sumcad ku helayo waa arday og wuxuu bartay hadduu si fiican uga soo baxo in lagu siinayo abaalmarin gooniya in lagu siinayo Afrika iskuulada ardayda kaalimaha hore gasha ardayda wax barata yani waxbarashadooda ku dadaala ardayda xisaabta ku fiican waxba lama siiyo alla iskuulada jira xalfad qabta oo ardayda kaalimaha hore gala wax la siiyo laakiin ma jiro tusaale ahaan in la dhaho iskuula kan sanad dugsiyeedka xisaabta waxa ugu sareeyay hebel xisaabta saas uga shaqeeyay imtixaan baanu mar labaad dib uga qaadnay si aan u hubino mar labaadkii waa ku guuleystay abaalmarintaas ku guuleystay ma jirto qofkaas xitaa disna loo sameyn lahaa ardaygaas waxa dhici karta inuu maadada xisaabta uu ku takhasuso lamid maadooyinka Carabiga Ingiriiska waxay doontaba ha noqotay loo sameeyo loo maalinta wax Yurub waa aragteen markii koobabka la qaaday kubadda cagta kaba la bixiya bolondoor baa la bixiya dhexda ugu fiican baa la bixiya boortiyeeriga ugu fiican baa meel laga tagay ma jiro waxa la bixiya kaba bahalkii ah kabihii buu qaaday bahalkii buu qaaday maxaa waxa qofkaas intaas darajo loo gaarsiinaya qofkii inuu shaqadiisii uu jeclaado shaqadiisii uu ka helo marka Afrika nidaamkaasi kama jiro waa waxyaalaha tacliintii ama waxbarashada Afrika hoos u dhigtay way kamid tahay taasi waa mid kamid ah waxyaalaha hoos u dhigay waa ardaygii kaas maxaa soo haray xarumihii waxbarasho ama facility-ga waxay dhahaan agabka waxbarasho iyo meelihii waxbarasho labaduba waa liitaan bal iskaba dhaaf liidashay iskuulada degmooyinka ku yaal qaar baa laboratory aan lahayn shaybaar baa aan lahayn oo Soomaaliya kow ka tahay ardayga in wax loo dhigo la dhaho kan waxa la yiraahdaa tan il baa la yiraahdaa hay baa la yiraahdaa yani oo sawirade oo sawir loo sharxo kan pupil baa la halka ku yaal waxaas ardayga in loo dhigo oo la dhaho tan intii loo sawiro unugiyo ama selki loo sawiro khaliyadii la dhaho kan waa cytoplasm nuux difaaca unugu difaaca waxaan leeyahay kan waa salman barayn nuux difaaca kan waa cytoplasm waa salaxi unuga waa meeshii mitochondriyaha iyo waxyaalo yar yar oo salku ku shaqeynayo kor saarna tan nucleus baa la yiraahdaa waa meeshii unuga xuduntiisi ahayd tan ku sii dhexjida nucleus baa la dhahaa DNA-da halkaas ku jida ardaygi waa loo sheegayaa waa looga sheekeynayaa ma garatay laakiin ardayga intii laboratory la geeyo kan waa shaybaar dul istaag fiiri mawjada warsal mawjada xub yar oo ka sareeyay mawjada kaas waa salman barayn ka mawjada ha kaas meesha sagxada banaan mawjada ha waa cytoplasm ma garatay waxa u jeedada qalooca waa mitochondria arday waxa lagu dhahaa Afrika ma jidho nidaamka waxbarasho asaasiga aan ka hadlaya nidaamka waxbarasho asaasiga aan ka hadlaya ma jiro arday saas oo dhan wax loo barayo ma jidho ma jirto qala agab caafimaad Afrika ma jiro ama shaybaar ha noqdo ama mid kale ha noqdo qaab kasto oo arday wax loo bari lahaa oo agab waxbarasho aha Afrika ma yaalo haduu yaalo waa meel difiya qaliila wadamada waliba Afrikaanka ugu horeeyay xoogay laga yaabo iskuulo kamid oo qaaliya in laga helo baa laga yaaba laakiin Afrika ma yaalo qalabkaas ma yaalo shaybaarkaas ma yaalo haduu yaalo ardayga waxba laga yaabaa in la tustuso iskuulada laboratory-ga leebay xoogay yar oo waxay u sameeyaan waxay tahay experiment u sameeyaan bas intaas ku eegtay agab caafimaad Afrika ma leh iskuuladu ma leh anu Soomaaliya ka imi Soomaaliya wax ku soo bartay iskuuladu ma lahan ardayga bas lagu qaado gurigiisa ka soo qaado xarunta waxbarashada keena iyo mid celiyatoona ma leh basasku ma leh alleele
bi'alada iyo dadku iska raacaan ardaydu iska raacdaa ma ahane agab waxbarasho ma lahan ma jiro iskuulada waa la iska qoraa haddaad iskuul rabtid hoose ama dhexe ama sare ku doonaba ha noqdee iskuul baad iska furan kartaa dawladuhu lama xisaabtamaan Afrika intee xarumo waxbarasho baa halka ka jira tusaalahan Uganda oo kale Uganda ilaa 40 jaamacadood baa ku yaal ma garatay baa ku yaalo maalin dhawey dawladdu waxay sheegaysaa oo madaxweynuhu sheegayo life uu ku jiray in 86,000 oo xarumo waxbarasho ay xiran yihiin fiidiyowgaas uu duuban yahay life waa madaxweyne ana dhagahayga ku maqlayay wuxuu yiri 86,000 institutions educational institutions baa xiran 86,000 oo xarumood oo wax lagu barto baa xiran يعني كورونا هدرتي وليبا وحي waa registered 86daas waxay ka register gareysan wasaaradda waxbarashada ka register gareysan marka macnaheedu maxay tahay ilaa 30,000 oo kaleeto baa jira oo furan oo bareefadyo iyo meelaha wax lagu barbarto iyo practical iyo iskugu jira oo dawladda u diiwaan gareysnayn macnaheedu waa 100,000 oo waxbarasho baa jira Soomaaliyana waa kadalika Muqdisho magaalada Muqdisho intaasoo jaamacadood baa ku yaal gobolada meelaha intaasoo jaamacadood ku yaalin dawladaha lama xisaabtamaan jaamacadaha iskuulada la furayo dawladuhu lama xisaabtamaan Afrika oo dhan waa iskaga mid lama xisaabtamaan waa la xisaabtama yani laakiin sida dadka cadaanka ay ula xisaabtamaan jaamacada tan ma u dhameystiran tahay macallimiintii ma u dhameystiran yihiin agabkii iskuulkan ma u dhameystiran yahay lagalama xisaabtamo Afrika lagalama xisaabtamo lagalama xisaabto waa la iska furaa wax laga qisiyaa shahaadada furitaanka fi maalillah taas waxay keentay in nidaamka waxbarashada Afrika uu hoos u dhaco bay keentay taasina waa sababta ilmaha Afrikaanka uu waxbarashadiisu ay ugu hooseyso ilmaha kale ta cadaanka uu mar walba kana cadaanka u aqoon badan yahay nidaam macnaheedu maxay tahay maxaa keenay macallinkii kuma qanacsana taqadi ardayga waxbarashada kuma qanacsana agab caafimaad ma jiro waxyaabahaas oo dhan waxay keentay in qofka waxbarashadiisii yani nidaamka waxbarasho Afrika inuu hoos u dhaco bay keentay anigu marar badan baan cadaanka eedeeyay oo ku eedeeyay in Afrikaanka iyagu la dageen laakiin markaas oo kale dadka Afrikaanka baa la eedayn karaa ilama inuu jiro iskuul aanan gadin karan agab caafimaad oo ku filan waxaan aaminsanahay markii iskuul la furayo oo budget loo dejinayo iyo dhaqaale lagu dhisi lahaa inay dawladdu xoog ku saarto iskuulkaasi dhaqaalaha lagu bixinayo dhisitaankiisa oo loo dejinayo in lagu daro sidoo kaleeto agabkiisi waxbarasho in lagu daro agabkiisi waxbarasho in lagu daro iskuulkana oo iskuulkii aan agab waxbarasho aanan haysanin aan loo ogolaan in la furo qofkii ganacsadaha iskuulka maal gashanayay wuxuu aqbalay inuu iskuul furo wuxuu aqbalay inuu iskuulkii dhiso u dhiso dayr u dhiso daaqada geliyo uu kharash geliyo marka sababtuusan u aqbalayn inuu geliyo inuu agab caafimaadkiina maxay tahay anuu ma garanayo qof dhan oo maalgashi wata oo raba inuu dhiso guri wax lagu barto waan hadana agabkii waxbarasho aan soo dhameystiray anuu ma aqaan ujeedadeeda Afrika oo dhan nidaamkaas waa ka caan meeluusan Afrika ka jirina ma jiro nidaamka waxbarasho Afrika hoos buu yaal taasna dawladaha Afrikaanka la rabo inay xoog ku saaraan hadda African Unionka waxay xoog saaraan dawladdu si u jiri lahayd bay xoog saaraan bay isku koobaan salaan amniga وقتين أفريقيا يونيون كو عندما أميسون يجا وحكيين سومالي جاي أفريقيا ميشن إن سوماليا وأميسون نسوا جابي أميسون بندهنا وقتها إير سوماليا ونا كنا ماذا مجرو ما كنا ماذا مركو معها وأم عربي وبدنا كسو ورجع إنجليز كويري هايبا إيرجع سوماليا مركو ما كسو ورجع ما كنا ماذا ما ده سوي ورجع سا نأبي سو بدلسا تصالحان مريم قالوا يا مريم إرجع عربي مريم بصحة إنه ميم كده ماذا أو ما كده مسوا مريم بصحة لكن في الصومالي مركي لو سورجيو أو دواقي في الصومالي لو سورجيو مريم سي أوتوماتيك يحسب بدلسا مريم ما عاد يحسب بدلسا نعم يحسب بدلسا ميم كم يحسب بدليا نوم يحسب بدليا
sidoo kale kaafka ama ka'da eray Soomaaliya ku dhamaada ma jiro markuu ka yahay gaabu isu bedelaya salaan erayga saxda ee carabiga waa mubaarak marka Soomaaliga ka'daas maxay isu bedelaysaa gaabu isu bedelaysaa mubaarak bay noqonaysaa inta naxwaha Soomaaliga inaan halkan ka taxana oo isagana taxana u sameeyo oo dadka luuqada laga saxana waa jeclaan lahaa isagana laakiin taas idinkeedu ku xiran tahay saa u share gareysaan iyo saad like iyo commentiga uga bixisaan oo gruubyada ugu share gareysaan taas idinka idin taala insha Allah anu waan soo diyaarinaya haduu Ilaahay igu garabsiiyo waan soo diyaarinaya oo Ilaahay idmo taxana af Soomaaliga in dadka laga saxo lahjadii laga saxo salaada Maryam oo kale waxay isku bedelaysaa si automatic ah Maryam bay isku bedelaysaa oo miimka wuxuu noqonayaa nacbu noqonayaa way badayin marka hada Amazon inagu waxaan dhahnaa Amazon laakiin erayga saxda waa Amisom waa African Mission in Somalia ba marka Somalia laga soo koostay marka ma dhihi karno Amisom oo ma kuma dhamayn karno sababta dhawaaqeeni inaga Soomaali ahaan baa inoo diidaya waa sababta inuu dhahno Amazon marka Amazon waxaan ku keenay African Union midowga Afrika sida European Union u jiro ba African Union u jira marka midowga African Union midowga Afrikaanka ba Soomaaliya markay burburtay yaani Soomaaliya xaaladeeda laga yaabay markaas ciidamo isku dhafa oo Afrika laga waday la geeyay si loo xasiliyo amniga wadanka waa sida iyagu dhaheen waa sida African Union ay ku dacwootay yaani inaan geeyno Soomaaliya ciidan kaasoo amnigiisa sura ciidan kaasoo isku dhaf ah oo wadamo badan oo kala duwan oo Afrika ay ka kooban yihiin si loo sugo amniga dawladda iyo madaxda loo sugo baa la geeyay Afrika marka African Union waa ku maasan yihiin dareenka Afrikaanimo ay Soomaaliya la wadaageen laakiin sidaas oo kale waxa laga rabay African Union budget bay u dejisay ciidanka Amazon oo qaataan sidaas oo kale African Union budget gaar inay waxbarashada u dejiso oo xoog ka saarto baa la rabay oo jaamacadaha Afrika ku yaala ee ugu fiican jaamacadaha waxyaalaha gaarka ah ku fiican tusaalahan hadii la dhaho jaamacadda Muqdisho University waa waxay ku fiican tahay cilmiga diiniga ama shariicada iyo qaanuunka jaamacad Hebelow halkaas iskaga taal ma garatay Makereri oo kale oo Uganda ku taal waxay ku fiican tahay cilmiga engineering ama dhismaha ba ku fiican tahay la dhaho African Union baa laga rabaa inay lahaato vision iyo mission u gaar ah oo waxbarashada oo hirgala African Union way leedahay budget bay leedahay system bay leedahay waxbarasho oo waxbarashada u qaabilsan laakiin waa mid aan gaarsiisnayn heerkii laga rabay marka si dadka tacliintoodii waxbarashadooda kor loogu soo qaado African Union waxa la rabay inay dejiso nidaam waxbarasho oo system oo fiican oo dadka Afrikaanka ah ay ku caanamaalaan ay ku soo rogto African Union wadan kasto Afrikaana waa inuu nidaamka waxbarasho uu hoggaansamaa wadankii aan nidaamka waxbarasho u hoggaansamina waxa laga laabanaya sharciga aqoonsiga ee waxbarashada African Union oo ardayga Afrika jooga markuu secondary ka baxo oo all level ka baxo ama form 4 uu ka baxo ama senior 4 uu ka baxo hadda sida uu taqaanid uu all level ka baxo uu haysto shahaado caalamiya oo wadankiisa ku qoran tahay ama wadankii uu marka secondary uga baxay ee uu qoran tahay sidoo kale shaabadii African Union ku dhagsan tahay oo ninka African Union waxbarashada u qaabilsan uu saxiixo marka Afrika waxa imaan lahaa nidaam waxbarasho oo fiican xitaa agabku ha hooseeyo laakiin kala dambeynta in la dhoo ardaygan waxa hubiyay African Union baa hubiyay shahaadadiisa waxa saxiixday African Union qaaradaha kale markuu tago China tago markuu Mareykan tago waxa la leeyahay ninkan waa African Union baa soo hubisay oo soo approve gareysay sababta hadda qofkii secondary Soomaaliya ka baxa oo dhaha jaamacaddan Mareykan ka baranaya markuu jaamacadda dadku u sheegayo Soomaalida ahna madaxay gacmaha saaraya warninkii waa waashay leeyihiin kuwa uu jaamacadda ka rabo inuu wax ka barto Mareykankaana madaxay gacmaha saaraya warnina kan waa waashay leeyihiin kuwaasna waxay leeyihiin adoo Soomaaliya ka tagaa rabo in degree ku dhameeyay secondary baa rabo inaad jaamacad Mareykanka gashiid war waa waala tahay oo wax baro leeyihiin kii Mareykanka joogan wuxuu leeyahay adoo Afrika ka yimi oo Soomaaliya ka yimi baa rabta inaad jaamacad toos bilowdid war waa waalan tahay oo wax baro baa leeyahay sababta maxaa keenaysa dawladdiina awoodeedu way hooseysaa African Union oo la rabay in ay xil iska saartana shaqadeedu waa ay gabtay
marka African Union waxa laga rabaa in ay la timaado wax sax ah nidaam sax ah oo waxbarasho oo lagu qanci karo bankiyo badan ba Afrika ku yaal ganacsiyo badan ba Afrika ku yaal cashuuro badan ba la qaadaa dawladaha magdhow badan ba laga qaadaa lacagaha la isu geeyo waxbarashadu waa raqiis markii loo fiiriyo waxyaalaha kaleeto budgetyada meelaha kale lagu bixinayo markii loo fiiriyo waxbarashadu waxyaalaha raqiiska ah bay ku jirtaa marka si kor loogu qaado nidaamka waxbarashada Afrika ka jira waa in African Unionku xoog iska saaraan macallimiinta anu saddex shay baan ka hadlay oo waxbarashada Afrika macallinkii oo qanacsanayn oo shaqadiisu ku qanacsanayn ardagii oo waxbarashadii ku qanacsanayn iyo agab caafimaad oo aan jirin saddexdaas shay baan anu ka hadlay saddexdaas shay baan rabaa inaan si fiican hadana u faahfaahiyo macallinka aan ku laabto macallinka Afrika jooga ma aha mid shaqadiisa ku qanacsan macallinka Afrika jooga sababtu san ugu qanacsaneen waxay tahay dawaaniin sheegayo macallinku wax mushaharkiisa ka baxsan ma uu helo jangu sokoje welcome what's your name Isan which school do you study from come here which school do you study from Bunga Primary School Bunga Primary School yes. So you said what's your name Ifan so which class are you now P1 Primary 1 yes how many subjects do you do 5 subjects 7 subjects how many classes do you do in total I don't know you don't remember yes you do mathematics you yes. count the subjects you study English mathematics you don't do science English mathematics only two subjects only no literacy you don't remember others okay I will call you later thank you waa arday yar oo dadka wadankan u dhashay Ugandesa waan wareysanayay magaciisu noo sheegay wuxuu noo sheegay iskuul xaggaas ku yaal Bungada ku yaal inuu dhigto inuu hadda class kii koowaad u bilaabay iyagu de markii anagu aynu yaryaray waxa layna geen jiray dugsi quraanka markuu qofku soo dhameeyo quraanka ama meel fiican soo gaaro wax badan soo fahmo markaas iskuulka la keenaa oo fasalka koowaad ee dugsiga hoose looga bilaaba laakiin iyagu waxa jira meelahan kindergartenada maxaa la yiraahdaa nurseryga meelahaas la geeyaa oo horta lagu soo dhisaa ilaa 3 sano 4 sano markii qofku xoogay wax soo kala barto oo noqdo wax akhrin kara wax baalki garan kara markaas wax la keenaa fasalka koowaad ee dugsiga hoose primary 1 baa la keenaa Uganda markii qofka primary 1 la keeno oo qofka primary 1 la keeno oo qofka primary 1 la keeno uu wadaya ilaa primary 7 uu ka gaaro ama B7 uu ka gaaro markuu B7 gaarana imtixaan dawliga laga qaadaa oo dugsiga hoose dhaxa ah kadibna markaas wuxuu bilaabaa oo level iyagu fasalka 8aad kuma dhamaadaan fasalka 7aad ku dhamaadaan markaas qofku senior 1 bilaabaa oo fasalka 9aad meesha anagu u naqaan ee dugsiga sare form 1ka senior 1ka galaan 4 sano qofku ku jira markuu 4 sano ku jiro uu 4 sano senior 4 oo senior 4 ka baxo oo level baa yiraahdaa levelka uu ka baxa kadibna A level buu galaa oo 2 sano ah uu ku barto waxyaalo takhasus ama sayniska ama artiska hadda wuxuu rabo uu markaas barto marka uu fiicay wuxuu bartaa Ingiriis wuxuu bartaa xisaab wuxuu bartaa suugaan literacy saddexdaas uu sheegay laakiin saynis iyo waxyaalahaas loogu dhigay waxaan u maleynaa 5 xiisadood buu qaataa ama 5 class ama 5 subject ama 5 module buu qaataa marka hadda 3 uun buu noo sheegay waa ilmo yar oo hadda fasalka koowaad la geeyay oo qamti corona ay ku dhacday oo waxbarashada laga xiray marka Afrika macallinkii baan ku jiray macallinka Afrikaanka ee wax baraya ma aha mid shaqadiisa ku qanacsan markii loo barbar dhigo macallimiinta kale ee adduunka wax barta bariga hore Soomaaliya wadaad baa dadku quraanka bari jiray iyo diinta wuxuu ka yaqaan bari jiray laakiin xoog wuxuu quraanka
markuu ilmuhu quraanka dhameeyo macalinka waxa la siin jiray neef ama neef geela ama neef ariya ama neef lo aba la siin jiray macalinku marka intaas oo arday buu haystaa oo quraanka u aflaxday kuwa kale oo ka tagay xoolo badan buu macalinku haystaa sanad walbana xoolo fiican buu helaa oo dugsigiisa waa laga aflaxaa xerada macalinka dugsi quraanka dhigay xeradiisa oo arigiisa ugu xaroodo waxa gurigiisa dhisa oo ka shaqeeya xertiisa ardaydiisa ka shaqeysa intaas xoolo waa gurigiisa looga shaqeeya gurigu ka shaqeyn buu rabaa miyiga ahay ma garatay ardayda qayb kamid ah xoolaha u soofiso u raacda kuwa kamid ah u soo celiya oo xiriir soo xareeya habeenkii soo dheelmiya guriga ka shaqeeya ardaydiisa waxa mid shaqadiisa boqol ku qanacsan buu ahaa ardaydu quraanka baro aflaxday ba oo marka dhameysaba kuwa kale naqtiinka ka dhageysata waxa mid shaqadiisa ku qanacsan boqol laakiin hadda nidaamkii miyiga waa laga baxay nidaam magaala la yimi hadda magaaladuna baraka la'aanteed ay wadataa oo miyiga dabiya la'aan ba iska jiray abaar ba iska dhici jiray waxyaalaha dabiiciga dhici jiray waa loo dul qaadan jiray laakiin magaaladii biyo iyo raashin iyo baadba waa yaala laakiin sidee lagu heli lahaa way bahal sixira la sameeyay sixira oo magaceeda la yiraahdo maxaa la yiraahdaa baasha sixirka lacag baa la baray dadkii lacagtaas dadka u kala adeegaysa warqadaas maanta dhan dadka u kala adeegaysa warqad baa bixinaysa alaab baa qaadanaysa waad shaqeynaysa warqad baa lagu siinaa warqadaas umadiiba kala haysa laakiin bariga hore dadku sidaa ma ahayn dadku kala bedelasho ku noolaayeen sidaasaana baraka badnayd hadda bahal lacag la keeno oo baraka lahayd hadii 10 milyan oo dollar lagu siiyo siyaasi kasta noqoto xildhibaan kasta tiid lacag kasta ku soo gasho waa ka baxaysa lacag kasta ku soo gasha waa ka baxaysa marka bahashaas la sameeyay oo dadka hadda wax ku haysa farabaan marka macalinkii wadamada Yurub iyo America iyo wadamada kale oo aan cadaanka horumaray macalinkii bay xoog saareen macalinkii baa wax la siiyay mudnaanta koowaad macalinka wax la siinayaa shahaadooyin macalinka wax la siinayaa intaas oo wax oo kala duwan baa la siinayaa suu ahaado mid shaqadiisa ku dhiirisan oo ku dhiirigelisan Afrika iska daayan macalinka la dhiirigeliyay ardaydii jaamacadaha dhameeyay waxay ka cararayaan inay macallimiin noqdaan sababtoo taa xoogin macalinimadu Afrika waa shumac macalinku uu gubanaya dadkii kale baa ka faa'iiday wax ka baranaya marka dadkii iska daa in ay macallinimadii shaqadii ay jeclaystaan waxaba sii dabar go'aya in la helo dad macallimiin oo dadka wax barta macallimiintoodana shaqadooda waa gabeen dhalinyaradii hadda soo baxdo wax baratay wixii taariibay mooy wax baratayna badankoodu ma rabaan inay macallimiin noqdaan oo shaqada macallinimadii bay ka cararayaan sababtoo taa macalinka amnigiisu ma sugna ardaydii qayb kamid ah baa macalinka dhunta u galaysa oo macalinka amnigiisu ma sugnaba iska daa intaan nolol kale baa la gaarin oo macalinka xasuulooni siyaasadeed oo wax ku baro ma haysto marka maadaama macalinku uu sanaysan xasuulooni siyaasadeed oo wax ku baro waxan yaraanaysa rajadii uu ka lahaa wax barista Afrika waa sababta Afrika wax barashadeedu ay dhulka u jirto ma jiddo urur gaar ah ama hay'ad gaar ah oo xil iska saartay macallimiinta xil iska saartay ma jiddo misalan UNICEF oo kale waxa la rabay UNICEF waa hay'ad caalami oo ay leedahay WHO ay leedahay World Health Organization United Nations uu leeyahay marka UNICEF waxa la rabay inay xil iska saarto shaqada waxbarashada Afrika baa la rabay inay xil iska saarto inay macallimiinta gurnooyin siiso baa la rabay joogto ah in macallimiinta laga warhayo baa la rabay in macallinkii dhaqaale ahaan iyo maskax ahaan iyo niyad ahaanba in loo kobciyo baa la rabay ma garatay ama dawladda ha kobciso haday dawladdu qabtay UNICEF la rabay inay xoog saarto si Afrika loo helo nidaam waxbarasho oo fiican laakiin UNICEF nasiib xumo ma aysan samayn sidaas waa jiraan hay'ado meelaha ka yimaado marmar soo dhaca oo macallimiinta siminaar u qabta oo xoogay lacag siiya عليه تاسواجدا لكن ما واحد جوكته ما واحد لو حسابته ميكرو اسكدايه ما واحد معلم والبو كو حسابته ميكرو اشخاص ان يرو معلمين تكميدا ان ير الله ما لبو بو سو غارا سيمينار كاس ما واحد كل جود اي ودا هلان maaha سيمينارادي ما لهلي با لو leey hada dhibaatada kale Afrika jirta waxay tahay markii siiba Soomaaliya markii iskuulkii la xiro oo lagu jiro xilliga samarka lagu jiro iskuulada la xiro oo xagaaga tahay oo fasax la galo oo iskuulada la xiro macallinkii mushaar ma helayo 3 bilood xagaaga macallinkii mushaar ma helayo macallinku maba ahaba markasta xil mar uu macallinku qanacsan yahay maba jirtaba waxa la rabay iskuulku
ومعلنكو يا أرضيدا يا بلشة ماشى كجرت يا دولدو يا هايدو إلى إسكا كاشران مع مشاهر معلن قاتوابا وحس كيا هذه حاجة إسكولة دي الحري إن معلنك مشاهر كسي حتى كلابر إلا السيو سي معلنك يقول نقضه متقن أحسن أو شقدي سي وحبرشدي سكوقن أحسن لكن ما دام وصل معلنك سي أو صراين مش شقدي كوقن أحسنين وحب ندامك وحبرشوا هوس بودعي وح بروموشن ماله وعلى ربي معلمين مشاهر كذا إن كلابر للسيو حتى إسكولة ديش الأودي كريم إن جامعة سمايان ومعانك كلابر لعكت سلوع عليو مشاهر كسلة حتى واحد قلنا إن للسيو لكن معانك إلا دو صدق لا بلود أدونا السوق دينا كجر وواحد يلا كينا يا معلمين تهميك وحبرشة وقبين أما إن أرضي وحبران أي هو صدعه هلكا wadamada reer galbeedku ay u badan yihiin wadamada cadaanka ah macalinku markii uu fasax ku jiro holiday ay tahay lacagtiisi laba jibaar la siiyo markuu sanadku dhalanayo gaaladu Christmas ka galayaan macallimiintu waxa la siiyaa bonus lacag bonus oo fara badan baa la siiyaa maadaama uu sanadku dhalanayo baa la siiyaa baa macallimiinta la siiyaa laakiin Afrika waxa iskama jiro iskuul waa laga yaabaa ciidaha macallimiinta wax u soo tuurtuura berigi hore oo Soomaaliya nidaamka dalladu aad ku xoog badnaa oo iskuulada dalladu qaali jireen waxay sameyn jireen nimankii dallada haystay waxyaal ay ku fiicnaayeen baa jira maalinta lacag ma bixin jirin anu inta ka xasuusto laakiin waxaan xasuustaa laba shay baan xasuustaa tan koowaad waxay ahayd shayga koowaad aan xasuusto ciida arafo ما عيد الصونك عيد الفطر معها عيد الأضحى عيد الضنب أو حجك عيد الأضحى ما قرأتي عيد الأضحى أو عيد الدهيلب يلا قلا أو المحل هذا عرفوا ما أنت ترى لما ما أنت دم العيد يو ما أنت عيد الضنب بقى على سمين جري سكولو ضلدوا حكومته سمين جري الصومالية أريبا على السوق اللي جري بدن لو كانوا كايم ده أريبو هذا كويه ده واحد بلشة مركز على لجاري كله رير هالوسيو أريبا كجرا لا مالحن ماشان كايم لو كبجدو لو واجر لكن ما وح لا ترين كرما وده الحساب سن كرما ووحير أو كوبن مركز أريب بدن بيسوق اللي جرين معلمين تا سكول كر قي بدن كود أدو إن كم إذا معلمين تا سكول كر فمعلم كي نيف لسينجري معلم كي بنيف لسينجري ولدي جري معلم هبل يعني نيف بكوسو عليه نيف قلن ولا سو قلي بالغو كين معلمك marka maalintaas karsani gurigiisa laga karin loo shiili wixii shiilan karaan maalintaas laga farxin jiray macalinka waa waxyaalihii ay nidaamka dallada ay ku waxyaalaha ay ku fiicnayd baa jira waxyaala taas oo kala kamid ahay waxa kale la qaban jiray mukhayyamku muxuu ahaa kaasna ardayda dhirigelin loogu sameyn jiray marna lacag baa la bixin jiray marna lacag lama bixin jirin mukhayyamku waa inuu ardaygu iskuulka aroortii hore yimaado xiisad loo qabto waxyaalo wax la barbaro kale adu nooc min seminar buu ahaa marka waxa la siin jiray ardayga cunno macaan baa la siin jiray qadada malka kaaro cunnatii lagu quraacday kasi qada fiican baa la siin jiray marmarka qaarkoodna ardayda lacag baa la siin jiray xoogay lacag la siin jiray tartanaa loo qaban jiray tartan kubad lacag baa loo qaban jiray tartan waxbarasho loo qaban jiray ma gartay abaalmarin baa la siin jiray xoogay ardaydo dhanna ma ayn qayb ardayda kamida bay saasa lagu dhiirigelin jiray taasi waa nidaamka yaani dalada Soomaaliya waxyaalo ku fiican marka Afrikadan kaleeto way ka jiraan anigu waxa igu maqaalaa Uganda kaleeto iskuulada macallimiinta qaarkood Christmas-ka markay tahay iskuulada Kirishtaanka waliba markay Christmas-ka gaalada u dabaaldegayaan sanadka cusub in macalinka xoogay gunaa la siiyo oo yaani ciid uga dhigaan iskuulada Islaamkana ay sidaas kale ciid ay wax bixiyaan baa igu maqaalaa marka iskuulada wax laga rabay iyo dawladda iyo hay'aduhu inay iska kaashadaan oo xil iska saaraan macallinku maadaama uu yahay lafdhabarta waxbarashada maadaama uu yahay lafdhabarta iskuulka maadaama uu yahay shaqaalihii iskuulka ka shaqeynayay oo iskuulka u shaqeynayo macallinku uu yahay waxa la rabay inay xil iska saaraan sidii macallinkaas loo kaafin lahaa حيري نك عربية جبيه وقل للمعلم وفيه تبجيلا كاد المعلم أن يكون له رسولا يعني معلمك واحد موجسة دبع سنان أنت دبع سنان كده موج معلم كل هذا إنه نقد الرسول عمر بن الخطاب حيري
qofkii xaraf ibari lahaa hal xaraf aayad maaha sadar ma aha kelimad maaha xaraf hal xaraf ibari lahaa sirtu lahu cabdan waxaan u noqon lahaa adoon baan u noqon lahaa yani sayidii baan dhihi lahaa qofkii xaraf ibari lahaa ma garatay marka aqoontu waa wax fiican nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam oo ogtihiin xadiis wuxuu nabigu leeyahay cilmigu qofku wax barashadiisa ama cilmigu wax baranayo waxay ka bilaabataa min almahdi ila al-lahdi maalinta hooyada ku dhasho ay saa ku dhasho oo laga soo qaado ma garato hooyada laga soo qabto saaba lagu soo qabto adoo qoyaankii kugu yaalo cilmigu barashadiisu maalintaas ku bilaabataa adoo qoyaankaaga leh ila al-lahdi ilaa kafalka lagu galiyo ilka laga gelinayo ilaa ilka laga gelinayo oo ilka gudaha qabriga laga gelinayo wax barasha ku socota addalatidba umlisadii ku dhalisay hooyada ka umlisay baad arkaysaa oo baranaysaa inay dumar tahay inay shaqadeedu tahay umlisanimo baad baranaysaa hadii marka lagu qalay ama dhakhtar ku qalayna dhakhtarkii ku qalo maqaska haysta baad baranaysaa ilaa qabriga laga gelinayo lahdiga wax barasha ku socota inta marka maadaama islaamku uu booriyay wax barashada iyo cilmiga aad u booriyay ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun kuwa wax bartay iyo kuwa aan wax barani miyay simeeyeen waa ma sinade jawaabtu ma garatay cilmiga ilaahay waa fara badan yahay nabi maxamed baa waxad ku dhaaraa dadka wama uutiitu min al-ilmi illa qalilan wa ayat quraana yani cilmiga la yamasin aan cilmi la yamasin illa qalilan wax yar ma ahane wax yar baa cilmiga ba wax yar baa laga siiyay waa rasuulka ilaahay wa khayru khalqullahi waa ninka halka laga kixiyay bayt al-maqdis la geeyay laga qaaday samooyinka la mariyay rusushi ilaahay si wada arkay la kulmay waraystay socday samada toddobaad tagay ka gudbay ilaa sidratul muntaha uu ka gaaray kaasa waxa ilaahay ku leeyahay wax dhaada rasuulkaas waa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wax dhaada wama uutiitu min al-ilmi illa qalilan war aqoonta aniga layma siin wax yar ma ahane haye macnaheedu maxay sheegaysaa cilmigu inuu badan yahay oo fara badan yahay buu sheegaysaa oo aqoontu inta yareyn maanta haysano aysan ahayn bay sheegaysaa baayada laga faa'iidaya marka islaamku cilmiga waa booriyay ma garatay hada islaamku wuxuu sheegay cilmi la barto waxa oo la sii baro waxa ugu fiican quraanka kariimka ah nabigu wuxuu leeyahay xadiis Usmaan bin Affan warinayo radiyallahu anhu khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu waxa idinku khayr badan qofkii quraanka bartay oo sii baray waxa la sheegaa oo sugan qofka xaafidul quraanka inaysan ciida cunin maalin dhaweyd waxaan YouTube ka daawanay maalin dhaweyd yani qofka xaafidul quraanka aan ku soo xasuustay inaysan ciida cunin maalin dhaweyd waxaan YouTube ka daawanayay qiso laga sheekaynayo magaalada Madiina ka dhacday wiil yar oo wuxuu yahay shaab ah oo dhalinyaro ah ba salaada safka hore ku tukan jiray takbiratul ihram waxa la yiraahdaa markuu imaamku Allahu akbar dhaho qof dadka ku daba xirta oo yaani dadka safka hore ku tukada saasa u garanaysaa wiilka dhalinyarada wuxuu ahaa dadka aan safka hore laga waayin salaada aan laga waayin buu ahaa oo yaani sami Allahu liman hamida intuusan Allahu akbar talabaad intuusan imaamku orad yaani imaamku ragcadda koowaad ku jira buu ku soo gaari jiray weligii ragcad koowaad ma dhaafin balay salaada uu ku dadaali jiray oo ahaa diinta ku kooxaa waa halkii uu nabigu kala alayhi salaatu wasalaam todobada aakhiro ilaahay harkiisa harsanaysa al-imaam al-aadil hogaamiye cadaalad badan baa ugu horeeya al-imaam al-aadil ba ugu qofka imaamka ee dadka hogaamiya oo leaderka haduu cadaalad ku istaago wax ka sharaf iyo sumcad badan ma jiro waa la soo tijaabiyay laguna laaban maayo nabigu aakhiro wuxuu qofkii mu'mina oo imaam ah oo caadil sameeya ilaahay aakhiro harkiisu harsanaya waa kan ugu horeeya al-imaam al-aadil qof dadka cadaalad u sameyn kara qof dadka cadaalad u sameyn kara marka waxa ku jiray todobada qof ee aakhiro ilaahay harkiisa harsanaya waxa ku jira washaabun nasha'a fi ibadatillah mid dhalinyaro ah sida wiilkaas oo kale aan hadda ka sheekeynayo oo ku barbaaray cibaadada ilaahay ku barbaaray marka wiilkaas waxa dhacday safka hore ku tukan jiray salaadiisa takbiratul ihram ku tukan jiray salaadu ma dhaaf jirin maalin maalmaha kamid ah tii ilaahay u timi waa dhintay geeridii baa u timi waa lagu tukaday
waa la aasay isagoo qabrigiisa ku jira baa wax dhacday baan u malaynayaa si fiican halka uma xasuustee roob soo da'ay oo daad soo rogmaday baa qabrigii qoday oo yacni qabrigii biyihii baa wixii qodeen qabrigii wiilkii 6 bilood isagoo mootan bay roobkaasi da'ay oo meesha qodmatay 6 bilood kadib baa waxa la arkay meydkii wiilka oo banaanka yaal oo sidiisiya ciidii lagu riday waxay cuntay kafantii cadayd bay cuntay jirkiisi waa nadiif waa banaanya waxal meel wax moodaa in hadda qabriga lagu riday qofkii aan yaani si fiican ugu fiirsanon ogeyn bay inuu wax meed yahay wuxuu u malayn karaa qof furda hal meel isma bedelin walaa tin walaa can walaa gacan walaa jirkiisa meel isma bedelin hal meel ciidu ma culin وفهمتوا؟ ما فهمت؟ understood؟ ما فهمت؟ وبيك chance في عنوي وحكود أنت إيمان بكود أنت كاس مركي آخر الله يسوع صار ويل كاس إنه هرك إلهي هرسنايو شككوا مجرو وحديث كنا بيقول كتاعين وها تدبر إلهي وكرتنا حكم ده قف المحل يرادا دلني يرى ودين إلهي كبر باري إلهي سافسو كلا هني كدو دلني يرى أنت يداون دلني يرى وبدن تاعي odayaashay daawanayna deelay awlaadiina saas oo kale Allah ka dhigo ya awlaadooda idinku aamiinta badiya oo aamiinta iska badiya marba ducooyinka la aqbalay ilaahay anagana sidaa naga dhigo awlaadeedana sidaa ka dhigo marka marka wuxuu yiri waxaan soo xasuustay kafanta aan ku soo xasuustay hadal qiimo badnaa gabay qiimo badnaa oo carabiya nin baatiriye sheekha wuxuu leeyahay ليس القريب قريب الشام واليمن ليس القريب قريب الشام واليمن إن القريب قريب اللحد والكفل ليس القريب قريب الشام واليمن ولكن القريب قريب اللحد والكفل معناه ذم هيته ليس القريب قف عصيب كماها وكما عصبا قريب الشام واليمن إنه الشام يا يمن تقول وعراق يا يمن ودول آد وكلف كلابلاس ما قرأت يمن وهلا كان دوا سوماليا عراق نوا يوروب وتركيا بحكتان ويوروب يمن نوات وسوماليا ودول آد وكلف مركب كلية هاي ليس القريب يعني قريب كمتيد أما مرتي كمتيد شام واليمني شام أما يمن أدو تجي مرتي كمتيد إن القريبة مرتي واحد كتهاي إن القريبة مرتي نمضو قريب اللحد والكفلي ومرتني ماذا إن كفنت اللي جريو قريب اللحد والكفري إيلك لحد إيلك اللي جريو هي كفنت اللي جوه رأيو ماشى صد مرتكو تحت الله رمبنا وأستقوا ما قالت العرب عرب أنو ملاينا وهذا يقول رمبنا أي عرب تري عربت ولا قيمين جدي موقت أشتعوا قول ما قالت العرب عرب وحي تري هذا الكيبة أوجيس سنة أستقوا القول ما قالت العرب عرب هذا الكتري أستوى العرب ما قالت عرب يعني عرب هذا الكتير محا أورن بدنا وحنا ملاينا إنه كاسي هذا الكاسي هذا كي أورن تبنا عرب تري ما دام ويرين كاسي ليس القريب ليس موقته فعل ماضي الناسخ موقت قريب مركا واسم ليس وي ومركا وانه مرفوع مخلوق ليس القريب قريب الشام قريب تدنبه كورتا دغنا قريبه اهنا وخبر كي ليس وي ليس القريب قريب الشام واليمن ولكن القريب قريب اللحد ولكن إن القريب قريب اللحد والكفل إن القريب تانا قريبة خريبة على كردقيا محايا إنه وحتاي حرف النصب والتوكيد مركا اسمي إن قريب تاسوكي على كردقيا با اسمي إنه ساسا لون نسبي واسدا ولاي يا سبحانه وتعالى إن للمتقين مفاسا إن للمتقين إن تتكع بسدبا مفاسا نقول إسكاله مركا مفاسا واسمي إنه أو مؤخرة وي إن وحيس عربي صح لا نقول له إن مفاسا للمتقين نقول له إن في اسم جذو ومرول بوكر دجنيا وإن واحد جربا إن مفاسا إن القريبة إن الله إن وحي كحجبه وإنه كر دجنا هذا مركا لكن للمتقين أو جاري مجرورة صور من معنى مفاسا بوحدها اسمه معنى أو مؤخرة marka waa halka uu ka leeyahay marka waxyaalo badan baa gabayga laga faa'iidaa yani laysa iyo inna si isku xigeen oo midna wax ku godo midna ay wax kor dhigto laysa al qariibu da waxa goday laysa goday halka dambe innal qariibana qariiba wax kor dhigtay inna waa kor dhigtay
naxwaha waa ku fogaaday waan u malaynayaa halka in kastaanan macallin ku ahayn oo leegaga fiican yahay laakiin xoogay waxba ay iga kala baxsano idinkuba waa u jeedaan marka naxwaha in la bartay waxyaalo badan baa laga faa'iida إمام كي لا ينحرس عمريد وحليها ونحو أولى أولا أن يعلم إذا الكلام دونه لن يفهم نحوها مضن مركور إلا برتو إذا الكلام دونه لن يفهم لا أنت هذا الكلام فهميه إن وحبرشة أفريقيا كان يلقى سيلقى شيء نحوها إنت أنا كبحين عرفيري بل آيات عرابت إن نحوها لبرتاي سنو فائدة أولى هاي بل هالآيات القرآن كجدة عن سوقات إنت واحد يسيسان فصح يسيا إلهي وحليه هاي مركو ويسده كوربي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم warkuu iimaanka laga helo muslimiinta ayo markaad salaad u kicitantaan hortaan inaad tukataan oo weesaysataan faqsulu wujuhakum wajiyadiina dhaqaba ilaahay leeyahay waydiyakum iyo gacmihiina marka wow xarfa cadaf waxbuu isku xiraa hada xaraf wowgaas muxuu isku xirayaa gacmaha dhaqidooda iyo wajiga dhaqidooda yani markii halka laga dhiilaha faqsulu wujuhakum waqsulu aydiyakum waqsulu damba meesha laga saaro faqsulu wujuhakum wajiyadiina dhaqa وأيديكم يا جعمينا مركا وجوهكم ومفعول به ومنصوب وجوهكمنا وقعد فنتاي مركا آيات دي واسيس عطا هل كاس دب ماله أو وجهك ولا دقيا جعمهنا ولا دقيا مركا دوسيسين يسوي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم مدحنا مسحة نما يودتكم واحد بدن باكي خلدان صلاة ويسرع بدن كدتكم في عين لكن دادو حوغي وحكي قلدين بعد أركيسا waxa waajiba markuu qofku weesaysanayo inuu gacmaha uu dhaqo iyo wajiga sidoo kale inuu timaha biyaha ku masaxo ama hawada gaarsiyo ama wax yar gaarsiyo ama ku mulooqo inuu wax yar biyaha timaha gaarsiyo uu lugaha dhaqo intaas weesadu ku asaxda luqluqashada sandaarsiga dhagaha kuwaas oo dhan waa sunna mustahab weey waliba waa sunna muakkada waa mustahab waa wax sunna laakiin waxa waajibka ah waa gacmaha iyo wajiga iyo timaha halka biyo la mariyo iyo lugaha la dhaqo marka naxwii baan ku jiray ilaahay markuu ku leeyahay faqsulu wujuhakum waydiyakum ila almarafiq wamsahu masaha biruusikum timaha lama dhaqayo de sida wajiga looli leeyir wajiga uqsulu dhaqa leeyir yiri lama oran timahana uqsulu dhaqa lama oran wamsahu balayir masaha sa'u masah biruusikum ajari majruur moogtahay wamsahu biruusikum madaxyadiina masaxa biruusikum siinku walakan afar xaraf ba meeshan yaal afar xaraf oo meeshan yaal waa wujuhakum oo wajiyada oo la dhaqaayo oo haadu kor dhigan tahay wa aydiyakum yaada oo kor dhigan labadaas waa isku cadsayn horaan u soo sheegay labadan dambena way isku cadsayn wamsahu biruusikum wa arjulakum waxa qiraa'ah oo la akhriyay oo qiraa'ah oo sax ah wa arjulakum sidoo kale waxa qiraa'ah wa arjulukum in laanta la hoos dhigo waana qiraa'ah waa la akhriyay in laanta la kor dhigana waa la akhriyay waliba in laanta la kor dhigo baa caan baxday oo yaani fasiixa oo qiraa'ada loo badan yahay ah marka hadii laanta la kor dhigo hadii laanta la hoos dhigo maxaa faa'iido ka soo baxaya laba faa'iido ka soo baxaysa yaani naxw ahaan hadii la kor dhigo oo arjulakum la dhaho laanku wuxuu ku cadsan yahay wajiga iyo gacmaha soo wajuhakum wa aydiyakum وأرجلكم ويا مركا صدقوا ولا دقيا ووجهك وجعمها ولوها معها مركا جار كنا قنايا بالرؤوسكم سينك هوس دجان أو تمها لما سح يبقى كجونيا وقراءة اللي بدنا سدا قراءة كلا جدولة وجهنا دقة جعمها ندقة لا بدأ على سكما هيسو بالرؤوسكم تمها نمسح وأرجلكم يلوها لوها نمسح هل كسر مركا لو فريسنا يا يعني لوجا لما سحب منا كان المركب لو سيسنيو لوجاها ولا دقة سبب مركب وأنا قراءة ولا آخرية هو وحصغن هو أرجلكم قف كده أنا وأصح تاس حل لوجو كينا يا تنهار اللي بجريو ولا دقة يا تاوي حل لوجو كينا يا وحل لوجو كينا يا إن سمجر وح خفين الأورنجري وبرجر الاستعمال جري وسجسانتو كلا خفين كاس قف كسفر كحرانية وسيسني إسقى ويسقى بحراني كبها سجسانتو كلا وإسكبحي magaala fog buu u lugayn saddex habeen iyo saddex maalmood buu san iska bixinayn oo baalkaas lugaha ugu jirayaan marka muxuu sameeynaa qofkaas wajigii buu soo dhaqanaya gacmihii buu soo dhaqanaya timihii buu masaxaya marka masul khufeynka waxa sunna oo fiican qofka khufeynka xirani inuu kabaha kor ka salaaxo labadii lugood markii wajigii gacmihii aad soo dhaqdid ba khufeynka ilan waa sigisaan waaweyn oo aadan iska bixinayn moogtahay kor baad ka salaaxaysaa marka كربات وكبر سيدا تماد بيها ساعة وحيرو مريسي بقى يجنا كركب بحنسا نبي محمد بقى سبي صحابة سبين جرتي
ولا مسيحي خفينك ولا مسيحية marka qofkii wa arjulakum akhriyay waxa aayadaas daliil u noqonaysaa qofkii masaxayay wuxuu masaxayay kabi khufeynka masaxayay oo sigisaanta masaxayay kaasi sax u noqonaysaa qofka aan musaafirkan inuu magaaladiisa joogana habeen iyo maalin 24 saac baa loo ogol yahay inuu xirnaado marka hore isagoo wasaqab xirani wuu masixi marka halka naxwiyi baa faa'iido macaan soo saaro ah marna in lagu cadfayo وجه دقيقة أو سلة عادي وضدكوا استعمالا أو قراءة اللوبرة هي مرك أي كلا صح نقنا سنة أي تهي مرك كباه لما مسحيو مرك أنا ما ينحوه أدو وياه علم قفكي حوي مسكعلي سفران تاي أم كفي عن حسابات كي وحى بالإرادة مسكعلي سحوي يرفران تاي ونو برانكرو يعني ومادة أدو مع نحوه قفكي برتيهم بقى المركة علم جيبه هلك عيلا قالي علم جو فربديه مرك ورا وأنا الشيء غير النبي محمد عليه الواحد هذا وما أوتيت من العلم إلا قليلا علمك أدو جيدان با أنيقا وحي يربا ليقسي وأنيكي كعبادة مري ورسولك إلهي هلكا كبحي وخير خلق الله جبريل أركي هلكا مري وحبدين لتسي باقول علمك وحي يربا مركا علمك إلهي وفر بدنيا وعبرت شدا أفريكان كجرية وحن كسو هالي يعني إسلامكو سدو أدو الرجلية وعلمك أدو الرجلية إسلامكو سدو علمك أدو الرجلية بان كهلي الإسلام علمك ودي الرجالية إن أحاديثه يا آياتها يا وحي سنة أو فعل يا بالكلام باله ما قرأتي هلا كواحد لقوه السكره ولقوه سكوبي كره يا واحد في ذي ويرلقوه سكوبي كره معها إن تاسي ومعلنك يعني شرفت يا معلنك إن أرت الصومالي قاعد معلنك واحترامته إن فرنت إلهي باقوج جعل بدن كان ميل والبو أدونك معلنك جوجو وكو احترامية وبلشة دحدة معلنك آد بالله احترامه وحضونا بحبره قفك معلنك بلشوينك أدونك آد بلشة والبو جوجو عالمين طلعوا احترامه بلشة والبا لكن ده حاجة أديجي دي كله بعد وحصية أفريقيا هبا وجوسي دهناته كاسوا معلنك واحد سواري أرضية أرضية وسواري أرضية وحبرشة كم كان أحسن أرضي وحبرشة كم كان أحسن سبب بدن أرضي أجمع عافماد وشقاء وحبرشة كل الرجالية ما هيستو أرضي أجمع عافماد وحبرشة كل الرجالية ما هيستو أرضي يحوج هاي يسوق حتى سكندري كبحي أفريقيا دم باكسمان هادو جاني سيرهلو إنه شقة في عنو هليو وكي جامعة ده وكسب حتى أوسن هلين أفريقيا أرضي isku haleyn buu qabaa arday walba afrikaan wax baranaya sidoo shaqo ku heli lahaa waa yaqaan afrika waxa la wax ka jira shaqo la'aan unemployment baa ka jira ardayda jaamacadaha ka soo bixiyeen waa iska farfadhiyaan been waayo arday kasta waa yaqaan waxay Soomaalidu dhahdaa ninkii tuur leh sidoo u seexan lahaa isaga yaqaan ninkii tuur leh sidoo u seexan lahaa isaga yaqaan afrika arday kasta oo afrikaanana soo wax u baran lahaa isaga yaqaan arday kasto afrikaanana soo wax u baran lahaa wax leeyahay markuu wax barto sidoo shaqo ku heli lahaa isaga yaqaan meesha jaaniskiisa iyo opportunity-ga oo haysto uu ku jiro wala kale nasiib badan yahay sax wala kale yani garab fiican yahay waa sax ma garatay hadda Uganda kale ala kan wax ka jira sida Soomaaliya aan ka arkay de adeero u giya xagga shaqo iyo xagga badanka kaba jido Uganda inta aan khibrad u leeyahay wax ka jira qofka Ugandeska shaqada abla gareynaya lacag buu bixinaya lacag yar buu bixinaya adigu HRM-ka kuwa shaqada dadka siiya iyo boosaska buu iska afgaranaya xoogay lacag u bixinaya shaqada hore laga siinaya Soomaaliyana adeerka baa wadanaysa ama ugaaskaaga wadanaysa ama nabadoonkaaga wadanaysa ma garatay oday dhaqameedkaaga wadanaysa matoobadiisa cimaamadiisu qaadanaya halkaas lagu la tagaya ama madaxweynaha ama maxaa la yiraahdaa hadba kii meesha qofka ka arimiya buu kula tagaya halkaas shaqadii hore laga siinaya waa dhaqanka Soomaaliya ka jira Afrika kama ka jira Afrikada kale aanu kole war uma hayo kole Afrika isma dhaanto shaqada qof ku hela aqoontiisa ma jirto taas waa xaqiiq marka maadaama ardaygu uu san haysan rajo dambe oo ku dhiirigelinaysa inuu yani maxaa la yiraahdaa ku dhiirigelinaysa
يعني waxa daad baratid qofkii niyad uma lahaba waxbarashadiiba niyad uma laha waxbarashadiiba niyad uma laha qofkii muxuu marka soo kordhay qofka waxbarashadiisa qofku waa wuxuu baranayo waa inuu u leeyahay rajo u leeyahay waa inuu dhiirigelin u haystaa ma garatay waa inuu dhiirigelin u haystaa hadda Soomaaliya maxaa ka jira nin baa wax bartay mid kale oo wax baran badsan baa shaqo fiican haya kii wax bartay xogaagiisa u tuuraya kii baa shaqadii u qabanayo wixii u qorqorayo wixii u hagaajinaya ma garatay marka waxa la rabaa in qofka lagu African Union waxa laga rabay maadaama dawladii Afrikaanka ay tan shaqadoodii gabeen waxa la rabay African Union inuu wax ka qabto waxa la rabay laftirkooda UNICEF maadaama UN ay Afrika ku qabto faa'iido badan oo Afrika laga raro raw material nin saaxiibkeeya baa wuxuu ugu yiri maalin Uganda laba Uganda dooday anigu waa dhageysta fiican baan ahaa maxaan ka faa'iiday halka wuxuu yiri kii markii koronuhu bilaabanay fikti hore bay ahayd oo la yiri wax walba la xiraya wax wadanka soo galay ma jiro baa mid baa labada Uganda dooday mid kamid ah wuxuu leeyahay ku leeyahay China dhaqaalaheedu hoos buu u dhacayaa oo Afrika ku tiirtana Uganda kale China intaas alaaba u soo dhoofin jiray hadii loo dhaw China waxba ma soo dhoofinayso oo China baan laga saaro la mamnuuco oo la wax la soo dhoofinayo ma jiro wuxuu yiri China dhaqaalaheedu hoos buu u dhacayaa kii kale wuxuu yiri China hoos dhaqaale uma dhacayo adigu waa la iska qabsaday waa la dooday marka mid iyaga kamid ah wuxuu yiri annaga faa'iido ku qabnay China oo haday China ina ka xirto telefoon ma helayno electronic ma helayno waxba ma helayno noloshii hore waa ku laabanayna oo miyiga ku laabanayna saakii kala wuxuu yiri ma ahe China iska iyaga barwaaqayno ku qabay iyaga ba barwaaqayno ku qabay seeno ku qaban bir waa la istooday adigu kii yiri China isaga barwaaqayno ku qabay wuxuu yiri doqon baa tahay yiri kii kale wuxuu yiri doqon baa tahay wuxuu yiri ma ogtahay sanadkii Uganda in la keeno telefoon iyo electronic iyo adigu wax isku jiro China laga keenay oo lacagteedu gaari ka dho 1 trillion hal trillion oo dollar ay gaari ka dho waa sanadkii oo dhan wuxuu yiri alaab la keeno oo lacagteedu dhan tahay 1 trillion baa Uganda soo gashay yiri sanadkii Uganda na buu yiri hal maalin macdanta ay cadaanku ka gurtaan buu yiri baa wax 5 jeer ka badan tahay wixii baa laga yaabaa yiri hal maalin Uganda macdan ay cadaanku kala bixin oo qaataan inay u dhigmato 5 sano wixii la soo dhoofin lahaa 5 trillion macdan lacagteedu gaari ka 5 trillion ba Afrika laga dhoofiyaa buu yiri maalintii adiguna sanadkiiba Afrika inta la soo galiyaa marka wuxuu raadii la kala goosto la dhaw Afrika waxba lama soo galinayo da Afrika nimcadeedii baa u baaqanaysa buu yiri warba maalahay Afrika nimca lagu qabaa leeyahay ma aha Afrika nimca lagu qabaa leeyahay ma aha inay anagu iyaga nimca ku qabno buu yiri horaantood bay nooleyn واحد حسوستان بقركي للدلي سعود عربية ملك خالد باسو ما هين خالد بانو لأن ما كان الماء على عبد العزيز ماشي هيسته يهدى السلمان وقدام بيو وفهد كم دها ما قرتي نينكي خالد الأورنجر ولا بس أنا بقرها والدلي مركي دمبه مركا خالد بقركا وكدي ده بالمقلاي سلو يقصو قارتي مرايكنكا يسوق كسر كجدو وحير مرايكن كشدا كي قادن مايو هدو قادنايو lacag badan waa inuu inaga nasiya isagana uu lacag yar qaataa hadii kala hanoo dhaafo waa la isku khilaafay nimanka ilma aalo Saciid waa la isku khilaafay baa la yiraahdaa waxa la sheegaa oo la shaaciyay Khalid inuu maalin iskugu yeeray Sacuudiga miya shacabka ama madaxda ma aqoon iskugu yeeray uu yiri awoowayaashan waxay ku noolaayeen xabad timira kan waa buskud abu walad laakiin wixii xabad timira bay ku noolaayeen laba xabad timira bay ku nooleen timir iyo biyaan ku nooleen biiri inaan timir iyo biyo sharaf ugu noolaano baa ka fiican in shida inaan nolol barwaaqa ku jirno oo leena ku gumaysto waata islaamka lagu dhibaateynayo hadda marka lagu dhibaateynayo islaamka lagu dhibaateynayo marka Khalid TC alla baa gashay Ilaahay uu naxariiste waa la dilay aduu markii dambe ma garatay iyagana dhanka kale wax iska tuseen marka Afrika nimca lagu qabaa Afrika nimca lagu qabaa taasi been ma marka maadaama UN ay UNICEF ay nimca Afrika ku qabaan bilaa cadaanka Afrika ka shaqeynay $100,000 oo mushaar ay qaataan iyo malaayiin dollar oo mushaar u qaataan qofka cadaanka ee leeyahay Afrika ka soo shaqeey maadaama uu lacagta tirada badan ninka cadaanka u qaadanayo iyo shaqaalihiisa hoos imaanayo cadaanka malaayiinta lacagta ay qaadanayaan waa rabinta lacagta ay qayb ka reebaan in ay waxbarashada lagu dhiirigeliyo
oo macallinkii lagu dhiirigeliyo hor iyo baajo ardaygii lagu dhiirigeliyo lacagta inay u isticmaalaan inay la diriraan ardaygu inuu qaab kale ku soo galo laakiin ninkii jaamacad ka qalin jabiyo inuu imtixaan ku galo uu jaaniskiisa imtixaan ku raadsado saasaa la rabay Afrika laga rabay in UN-tu ay ku bixiso lacag baa la rabay in UNICEF lacag ku bixiso baa la rabay maadaama ay lacag fara badan ay ku qaadanayaan oo lacag badan oo dakhli badan uu ka soo galayo waxa rabay in UNICEF sida isku dhaanto oo nidaamka waxbarashada Afrika wax laga bedelo ma ilaa iyaguba nimco bay ku qabaan iyaguba nimcay ku qabaan nimcada Ilaahay bay iyaguba ku qabaan oo lacag bay ka daldalanayaan oo mushaar fiican bay ku qaadanayaan waxa rabay inay wax ka qabtaan baa la rabay laakiin shaqadoodii waa gabeen UNICEF United Nations kulli shaqadoodii waa gabeen ma garatay haddii meesha aad mushaar fiican aad shaqaalaha waad ku qaadanaysid oo intaas waxa lagu qabo intaas waxa rabay in lacagta xitaa iyagu iska jiraan kooto commissioner iska jiraan macallin Afrikaan maxaa qanciya intiisa yarta waa garanin laanaga Afrikaan baynu nahay moogta in yar baa qancisa macallinka Afrikaanka xoogaa yar ay iska jiraan qootooyinka macallinka loo diro xitaa iskuul walba hadaysan u diri karin in iskuul kala dhoo macallin walba bil dhaaf uu qaadanaya kii bishan qaatay bisha dambe qaadan mayo saas kale waa inay ku xaliyaan oo at least ay xal u keenaan oo dadka waxbarashadii la jeclaysiiyo dadka waxbarashada Afrika waa naceen dadkii waa ka soo caageen ardaydu waa ka soo caageen waxay ku jeclaystaan ma haystaan marka waxaan maleynaa fiidiyoga idin ku dheereeyay nidaamka waxbarashada Afrika ka jira waa sida aad baad u mahadsantihiin daawadayaal jaalayaal iyo jooradooyin meel kasta dunida daafiyada ka joogtaan waxaan idinka codsanayaa ma adan rayaalow share iyo like wax la isku xasto ma subscribe wax la isku xasto ma war subscribe to channelka ii saara fiidiyogana like ii saara ina si share gareeya intaas qof Soomaalinimo iigu tara dadkayga adduunka gaarsiiya fiidiyogayga share gareeya intiina ay daawata ha share gareyso ma garatay waa idin ka codsanaya in Ilaahay idin naxariisto waalidkiin u naxariisto inaga inoo ka daba naxariisto markaynu dhimana Ilaahay inoo naxariisto awlaadina Ilaahay u naxariisto waa idin ducaynaya jaalayaal iyo jooradooyin fiidiyogayga qaado meel walba geeya oo si share gareeya oo caalamka gaarsiiya هذا خير بأن يدير رجينا أنت فيديو كانوا كلام كل منه واحد اللي سلامات من كل آفات وادك ودميسترن دائما تيفي وادك ودميسترن دائما تيفي وادك ودميسترن دائما تيفي